Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan idin salaamay khiyaarta dhammaantiisa aad u dhantihiin. Halkaad igala socotaan waa janalkeena Ladan Cabdow. Fadlan haddii aad janalka ku cusub tahay isku day dhageystow inaad codsigeena tixgeliso, janalkana subscribe saarto, gambaleelkana on ka dhigato si uu kuu soo gaaro muuqaal kastoo aan soo sheer garayna biidnillaah. Haddii aad joogtayna waad ku mahadsan tahay la joogistaada, qiimeyntaada quruxda badan. Fadlan waa ii muhiim qaybta dhiirigelinta kommentiga ha iga iloobin. Share, like, comment waa dhankaaga insha Allah. Waxaan rabaa qisooyin inaan idinla wadaago. Meeshaan waxaan kusoo gudbiyaa qisooyin aad u qurux badan. Runtii waxaan jeclahay markasto inaan idin faa'iideeyo, idinkana ha iga xasina like-ta inoo saara, waayo muuqaalkeena dad badan inuu arko ayay naga caawinaysaa. Maanta waxaan idin wadaa qiso kale oo qiimaheeda wadato oo qurux badan. Qisada ma ahan run ahaantii qisada qofka ay ku dhacday ama meel kastoo ay ka dhacday muhiim nooma aha, laakiin waxaan muhiim ah faa'iidada ka dambeysay qisadaas in guul laga gaaro. Insha Allah qisadeena ayaan guda galaynaa. Qisadan waxa ay leedahay gabadhan waxaan lahaa ayay dhahday reer caruur. Alxamdulillah waxay dhahday waxaan ahay ama aan ahay mid ku faraxsan nolosheeda. Waxay dhahday aniga waan shaqayn jiray, ninkaygana wuu shaqayn jiray. Run ahaantii xilliga koroonaha ayaa waxaana soo food saartay nolosha inay xoogaho nagu adkaato. Waayo waxay tiraahday koroonaha waxaa dhacay waagaas shaqo istaag, waayo anigana shaqadeyda way iga istaagtay, ninkaygii shaqaynaya asna shaqadiisa way ka istaagtay, waayo bannaan looma bixi jirin. Waxaa dhici jirtay ay dhahday mararka qaar in online waxaas wax lagu kala iibsado, laakiin uma u badnin shirkadda aniga aan joogno shaqaalooyinkoodii dhan waxay ku sameysay shaqo istaag, yacni shirkaddii waa la xiray sababo jira koroonaha awgiisa. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ayay tiraahday waxaan soo xasuustay waxay dhahday inta aanan soo xasuusinay dhahday faa'iidada aan soo wado. Waxay tiraahday waxaa soo galay Ramadaan ayay tiraahday. Ramadaankii waad ogtihiin waxay tiri waxyaabo badan oo dheeri ayaa loo baahan yahay, afur ayaa la rabaa. Waxay leedahay carruurta in wax badan loo soo gado, dhar iida sida haddii ahaan lahayd. Afurka waxay jecel yihiin waxyaabo qurquruxsan in la diyaariyo. Adiga waxay tiraahdaa almuhiim noloshii aad ayay noogu adkaatay ayay tiraahday, waayo ninkaygana ma shaqeeyo, anigana ma shaqeeyey. Waxay tiraahday wax masruuf waan helnaa alxamdulillah, laakiin markaas annaga ahaan naguma filna ayay tiraahday, waayo nolosha waxaan baranay tiraahday anigana waan shaqayn jiray, ninkaygana wuu shaqayn jiray, mustaqifi ayay inoo ahayd nolosha. Koroonaha markuu soo galay ayaa xoogaho caqabada badanna soo food saaray ayay tiraahday. Xataa guriga kiradiisa waa lagu lahay, laakiin ninka markaas guriga kirada aan ka kiraysanay wuxuu ahaa nin fiican oo run ahaantii xaaladda markaas taagan nala qiimeynaya, nin fiican ayuu ahaa ayay tiraahday. Waxay dhahday waxaa dhacday Ramadaan ayay ahayd. Shirkadda ninka aan u shaqeeyo lambarkiisa ayaan hayaa ayay tiraahday. Haddii shaqo ay jirto haddii shaqo jirin meesha ayaan kala socon jiray. Sida caadada ee dadka markuu Ramadaanku dhasho, Ramadaanka ayaa la isugu hambalyeeyaa muslimiinta oo Ramadaan Kariim ayaa la is dhahaa. Warqad ayuu ii soo qoray Ramadaan Kariim ayuu i dhahay. Kadib waan iska kala aamusnay ayay tiraahday. Ramadaankii ayaa soo galay. Waxay dhahday waxaan dareemay culays aad u fara badan. Waxay dhahday alxamdulillah waxaan soo xasuustay dhahday fadliga ay leedahay laa xawla walaa quwwata illaa billah. Waxay dhahday waxaan akhrin jiray dhahday markii aan salaada cishaha tukado dabadeeda ama salaada taraawiixda gadaasheeda ayaan akhrin jiray. Waxay dhahday alxamdulillah waxaan aqriyay dhahday laa xawla walaa quwwata iyo sidaas iskaga aqrisan jiray. Waxay dhahday kama soo wareeganin 3 maalin ay dhahday, waayo waxay dhahday markaan salaada cishaha tukado gadaasheeda ama salaada taraawiixda gadaasheeda xad ma lahayn ay dhahday intaan aqrinayay oo waan iska aqrin jiray. Waxaa dhacday dhahday 3 bari markii aan aqriyay maalinta afaraad in laga soo waco shirkadda ama kambanigii aan u shaqaynayay. Waxay dhahday shaqo ma jirto oo meel walba bandow ayaa saaran, wax shaqaynaya ma jirto, dadka waa la kala baqaya corona in la iskala qaadsiiyo. Waxay leedahay guriga nin walba guriga ayuu iska joogaa. Markaasaa niyadda waxaas waan yaabay dhahday. Waxay tiraahday ninkan muxuu kuu soo wacayaa, shaqana ma jirto, wax kaloo hadda maanta idinka dhexeeyana ma lahan. Calaa kulli xaal waa qabtay ay dhahday taleefonkii. Wuxuu igu dhahay heblaayoy iigu imow berito ofiska hadduu ilaahay ka raali noqdo ama kambaniga imow si arrin ayaan rabaa inaan kaala hadlo, taleefonku ma xallin kari. waxay dhahdeen waan yaabay dhahday waa iska akhristay laa xawla walaa quwwata illaa billah ayaan iska akhrisanay.
waagii markuu baryay waan baxay dhahday. Markii aan baxay aan tagay shaqadii shaqaalooyinka maxaa la dhahayay shaqa ma ka jirta meesha, wuxuu ii soo dhigay ayay tiraahday warqad ay lacag ku jirto. markaas ayaan ku dhahay yacni maxaa waaye waxaan. wuxuu igu dhahay waxaad leedahay muddo 5 bilood ah lacagtii aad shaqaynaysay. waxaan sameynay ayuu dhahay lacagaha waan u aruurinay dadkii shaqo joojinta aan ku sameynay 5taas bilood lacagtoodii waatana adiga iyo shaqaalooyinka kalena waa la siinaya, yacni shirkadda shaqaalooyinkooda kalena waa la siinaya, adiga keligaa ma ahan. waxay dhahday waan farxay alxamdulilah. waxay dhahday waan farxay qalbiga ayaa ii qabay culeysyo badan ayaa ihay dhahday. waxay dhahday lacagtii waan soo qaatay. lacagtii markii aan soo qaatay gurigeyga ayaan imaaday. ilaahay amarkiis maalinta intaana ninka u tegin ka hor waxay dhahday waxaa ii imaaday ninka guriga lahaa oo nin aan isku ficleen aan ahayn. wuxuu igu dhahay walaalay maadaama 5 bilood aan kuu soo sabrayay bal lacag wax ii raadiyo deeman ayaa lagu leeyahay. waxay dhahday waan walwalsanaa ayay dhahday. walaashii ayaan u tagay wax yaroo deen ayay isoo siisay sidii ayaan iskaga bixiyay dhahday guriga kiradiisa. markii maalintii xigtana waa tii ninka shirkadda lahay uu ii wacay lacagtan uu isoo guddoonsiiyey. waan farxay dhahday lacagteeda ayaan soo qaatay waxyaabihii aan u baahnay ilmaha dharkoodii guriga masruufkiisii deemankii lagu lahaay waxay dhahday waa iskaga kala bixiyey. walaasheedii lacagteeda waan u celiyey. waxay dhahday waan ku nimcownay oo lacag fiican oo wuxuu isii dhahday kaal iska argo ayuu isii dhahday. waxay dhahday ramadaanka waxaan jeclahay dhahday inaan sadaqooyin la baxo waayo waa bil sadaqo waa bil cibaado. waxaan rabay dad badan inaan afuriyo inaan sadaqooyin la baxo maadaama corona uu jiro oo maxaa la dhahayay dadkay waxba wada heysteen. waxaan jeclahay markastoo maatida baahan inaan wax siiyo. waxay dhahday alxamdulilah ilaahay niyadeeda waa ii aqbalay oo muraadkii aan lahay waan helay dhahday bifadlillaah laa xawla walaa quwata sababteedii ayaana ku helay dhahday. waayo laa xawla walaa quwata waxaa waye awoodna ma lihi xeeladna ma lihi ilaahayow ilaa adiga mooye sidaas waaye. marka waxaan yacni arrintii saas iigu furfurmatay bifadlillaah laa xawla walaa quwata illaa billah. waxay dhahday muddo dheer kadib waxay dhahday shirkaddii shaqaalooyin cusub ayay qoratay. shaqaalooyin cusub markii ay qoratay shaqaalooyinkii hore waa la iska dhaafay oo shaqaalooyin cusub ayay qoratay oo ka lacag yar waayo annaga lacag fiican ayaan ku shaqayn jirnay. shaqaalooyinkan dambana lacag yar ayaa loo qoray annaga sidaas aawadeed ayaan lacagtii ay noogu yarata shaqooyinka noogala dhaafay shaqaalooyinka lacag yar ahaan ay u shaqaynayeen. alxamdulilah waxay dhahday waan iska sabray dhahday laa xawla afkeyga kamaan din jirin waayo waan ku faa'iida ayay dhahday. waxaa dhacday maalmaha ka mid ah ninkii kambaniga lahaa inuu isoo waco uu dhaho kusoo laabo shaqadaada lacagtaadiina waa lagu siinaya yacni intaa ku shaqayn jirtaa ku shaqaynaysaa. waxay dhahday waan farxay dhahday waa nimco kaloo iisoo hooyatay shaqadeeda ayaan iskaga laabtay dhahday. shaqadeeda ayaan iskaga laabtay. waxay kaloo tidhaahday laa xawla walaa quwata muddo waagii gabadha ahay ama iskuulka aan dhigan jiray oo primariga aan ahaa. waxay dhahday waxaan ka maqlay dhahday fasalka ama galaaska ilmaha asla dhiganayna ay leeyihiin laa xawla faa'iidada ay leedahay iyo qisooyinka ay ka sheekeynayaan ayaan maqlay tiraahday waagaas. waayo waxay leedahay laa xawla horaan ogaa inay faa'iido lahayd haddana yacni culeys weyn iskama saarin. waayo hadda ka hor ayaa waxay dhahday anigoo waxaan sameeyey dhahday oo waagii aan yaraa galaas primariga yacni ahay galaasaha hoose ahay ayaan mar baraawiyey ayay tiraahday. ma ahan tookadii hadda iigu horreysay oo aan ku nimcoowa ayay tiraahday. waxay dhahday waxaa dhacday dhahday maalmaha ka mid anigoo iskuulka iska joogo waan ka maqlay asxaabteyda waan baraawey ay dhahday waan bilaabay. waxaa jirto hooyaday walaalaheeda oo isku dhacsan oo muddo ku dhawaada 11 sano aan wada hadlin waxayna isku qabsadeen dhaxal aawade boosaskii ayada ay leedahay oo dhaxal ahaan kusoo gaaray ayaa walaalaheeda dib aga cishte oo aga qaatay. waxay dhahday hooyaday waxaa waaye dadka aad iyo aad u kulul oo hadday mar xanaaqaan waa xanaaqeen yacni siday kusoo laabtaan aad ayay u adag tahay. gogashii ayaa lagu kala kacay oo 11 sano ku dhawaad yacni la iskuguma imaano la islama hadlin oo waa lagu kala guuray meeshii dhaxalkaas dartiisa waayo wixii iyada xaq u lahayd ayay ka baadeen oo ka qaateen walaalaheeda. waxaa dhacday inaan baraaweeyo waxaan u aqriyay waayo laa xawla markaad aqrisanaysa muraadka aad leedahayna waa inaad niyadaada ku qabsato ilaahay subxaana watacaala wuu kuu rumeynaya riyooyinkaaga. waxay dhahday waan iska bilaabay dhahday waxaan u aqrin jiray hooyaday darteeda si oo laa xawla walaa quwata illaa billah markaan badiyo ilaahay hooyaday qalbigeeda uu walaalaheeda raxmad ugu geliyo ayagana sidoo kale raxmad qalbigooda iskugu galo.
bifadlillaah waxay dhahday laa xawla sidaan u aqrin jiray waxay dhahday hooyaday waxaa dhacday dhulalkii laga dhaxlay oo yacni dhulalkii laga xoogay oo dhaxalka kusoo gaaray in dib loogu soo celiyo walaalaheedii ay heshiiyaan ayaa dhacday. waxaa jirtay dhahday wiil ayada da-dii ka yaraa ahaay waxaa ku dhacday maxaa la dhahayay xanuun la dhahay geeri ayaad qarka u saaran tahay ayaa ku dhacay abtigeygii. abtigeyga wuxuu dhahay yacni waxaa lagu dhahay dalka waxba kaagama qaban dalka dibadiisa waa in dhakhtar caafimaad lagugu raadiyaa. hooye asna wuxuu dhahay haddaysan i raacaynin walaashayda iga weyn aniga lagama yaabo inaan dalka dibadiisa u aado caafimaad waa un dhiman karaa mooye. hooyadeyna yacni xogo gurxun yacni waxaa jirtay hore ayay isku qabteen laakiin inkastoo laga heshiiyey laakiin weli qalbigeeda uma ahayn caadi. wuxuu dhahay haddiisan i raacaynin walaashayda iga weyn aniga ma baxaayi. haddana waxay dhahday laa xawla walaa quwata ayaan aqriyay muraadkaas ayaan leeyahay ayaan ilaahu iigu fududay alxamdulilah laa xawla walaa quwata illaa billah sidaan u aqrin jiray waxay dhahday ilaahay waa ii rumeeyey dhadariyadeeda oo hooyaday way ogolaatay inay abtigeyga raacdo. haddana waxay dhahdeen ma joojinin oo afka kamaanan deen jirin laa xawla walaa quwata illaa billah waan aqrin jiray si abtigeyga uu igu caafimaado oo muraadka u baxay ilaahay uu ugu soo sahlo sidii ayaan ugu aqrin jiray dhahday laa xawla walaa quwata illaa billah. hooyaday abtigey way israaceen wayna baxeen dalka dibadiisa ayayna aadeen. markii ay aadeen dhaqaatiirtii laga kulmay muddo dheer caafimaad dheer kadib daaweyn dheer kadib ilaahay wuxuu qadiray inuu abtigeyga caafimaado bifadlillaah laa xawla walaa quwata illaa billah sababteedii inuu caafimaado abtigeyga oo lugihiisa kusoo laabto. xataa markuu soo laabtay oo magaalkii uu kusoo laabtay dadkii way aamini waayeen dhaqaatiirtii loo geeyo la dhahay wax xanuun aa qabtid ma lahan la dhahay way aamini waayeen waayo ma oga ayaga nimcada ka dambeyso ama faa'iidada ka dambeyso inay tahay laa xawla walaa quwata illaa billah abtigeyga dartiisa ana u aqrin jiray. marka meeshaas waxaa nooga cad yacni muraad kastoo aad u niyeysato laa xawla walaa quwata illaa billah inaad u helayso insha allah. abtigeedii wuu u caafimaaday. markay qisadan abtigii waxay ka sheekeynaysana waa intaysan guursanin ka hor markay ahayd primariga. qisadan hadda kale ku dhacdana oo yacni u aqristana laa xawla waxay ahayd markii ay guursatay kadib waagii karoonaha oo yacni dadka aad iyo aad maxay shaqadii wixii dhan ay kala istaageen ayay aqrisatay. marka waa laba qiso insha allah labadaasba laa xawla walaa quwata illaa billah ayay u aqrisanaysay ilaahayna waa u fududeeyey amuuraheedana way heshay. laa xawla walaa quwata waxay caawinaysaa qof kasta oo rajo dhigay qof kasta oo quustay ilaahayna wuxuu ku leeyahay laa taqnaduu min raxmatillah marnaha ka quusanin raxmadeyda. ilaahay subxaana watacaala ha nagu sugo inaan markasta aqrino laa xawla walaa quwata illaa billah waayo waxaa waaye albaabaha jannada ayay kuu furaysaa guri ayaa janno lagaaga dhisayaa halkii mar oo aad dhahdo laa xawla walaa quwata illaa billah janno ayaa guriga lagaaga dhisayaa jannada ayaa guri lagaaga dhisayaa. marka maxaa diiday adigoo dalban karo ama adigoo samaysan karo inaad maalin kasto jannada guri ka dhisato oo aqrisan kara laa xawla walaa quwata illaa billah aqrisan karo maxaad ugu daaleysaa adduunyada oo beri haddii aad daara kasto aad ka dhisato daarahaas aad ka qaadanayso maracad. marka walaalahayga aniga idinkaba waxaan isku dardaarmeynaa xaqa insha allah ilaahayna hana waafajiyo towxiidka oo ha ka yeelo kelimadeena ugu dambeyso maalintaan dhimanayno laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah. ilaahayna hanoo fududeeyo xaqa oo yacni digriga ilaahay ha ku fududeeya carabkeena insha allah. waxaan rajeynayaa muuqaalkan iyo muuqaalo kalaa ka qurux badan oo markasta yacni inoo horseedaya inaan ilaahay u dhawaano inaan soo badin doono waayo qisooyinka laa xawla ma ahan mid inta lagu koobi karo qisooyinka maxaa la dhahaya saliga nebiga ma ahan mid inta lagu koobi karo qisooyinka istikfaarta sidoo kaleeto qisooyinka qaar oo qur-aanka xataa lagu sheegay inta ma ahan mid lagu koobi karo insha allah. waxaan rajeynaya dhammaantiina inaad ka faa'iideysan doontaan walaalihiina kalena aad u faa'iideyn doontaan waayo hal iyo laba haddii aad u sheergarayso hal iyo labadaas ay bilaabaan adiga ajir ayaa kaaga socda insha allah anigana ajir ayaa iiga socdo biidnillah. waxaan rajeynayaa inaan xaqa isku garab istaagno oo xaqa aan ku walaalowno labadii xaqa isku jeclaato xaq ilaahay dartiis isku jeclaato oo faafisa kheyrka ilaahay subxaana watacaala maalinta yowma alqiyaama oo fasaca uu jiro wuxuu fadhiisiin doonaa harkiisa laba ilaahay dartii isku jeclaatay dar ilaahayna ku kala tagaayo ilaahay subxaana watacaala fasacaas ma tusaayo oo wuxuu fadhiisiin doonaa harka. ilaahay subxaana watacaalana hanoo fududeeyo culeysyada laabteena saaranna ilaahay ha ka dejiyo. rabbi sharax lii sadrii wayasir lii amrii yaa rabbi ilaahay xaqana waafaji
waxaan idinka tegayaa tan iyo kulanto dambe wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.